Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madax kale ayaa maanta ka qayb galay aas loo sameeyay Allah u naxariistay danjiri hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Ciraaq Ciise Maxamed Cali Ciise Dheere oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho aaska danjiri hore ayaa waxa uu ka dhacay isbitaalka xoogga ee ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana mas'uuliyiinta ka hadla kamid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo sheegay in waqti dheer uu yaqiinay danjiraha waxa uu sheegay in xilligiisii hore uu ka shaqeynayay waxbarashada oo ahaa nin samaha jecel oo aad u wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalatu wassalamu ala rasuulillah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka golaha wasiirada oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka yahay wasiirada kale nagala soo qayb galay munaasabadan aaska ah xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kala gedisan dhamaantood aaska nagala soo qayb galay assalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib taariikhda safiir Ciise Dheere wax kooban ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda safiirka Allah u naxariisto in muddo xanuunsanayay waxa dhamaaday waqtigiisii runtii sida uu u sheegay wasiirka dibaddu safiirku wuxuu ka soo shaqeeyay meelo badan aniga anoo ciyaal iskuul ah ayaan bartay markaas wuxuu maamulo ka ahaa meel oo tababarka wasaaradda waxbarashada ay lahayd oo la dhihi jiray ceel jaalle marka kadib waaxyo kala duwan oo wasaaradda waxbarashada uu ka shaqeynayay ilaa mataqaanaa looga magacaabay safiirka Tunisia marka safiirka xanuunkiisu xogaa muddo oo socda bukaan socod ahaa maanta ayay soo dhamaatay Allah u naxariisto intaasaan rabaa anigu inaan mataqaanaa iraahdo ugana mahad celiyo dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabada aaska marka dhamaantiin ajri xasan ay ka siiyo wabillahi tawfiiq wassalamu calaykum waraxmatullahi